isku doorta diinta iyo xaqan lagu dagaalay isku duubni iyo dawlad baa lagu dangaaray diraan hiya daarood halgamay dul hawiya sheegtay iyo duub isaaq maan hiya damal jareer weyn tabarro iyo qubays baan hoon laga dab qaaday iyo digil dagaalada horsho dirir u qaasha oo bulshadii qabaa'ilo iyo waxba laga dhex saari laayay marka nin Cabdishakuur rigaa maalin dhaxeeto anigoo maalintaasi tadalxiis wada aadna socono wuxuu kala hadlayaa faaro markaasi riyo qabiil iyo dad baa socda iyo maartay arrimo unsaas buu kala hadlay marka waxaan ku yiri Cabdishakuurow ma sabaan tiri doona ma sabaan waxa la yiraahdaa 10 diraacood ha waana ma soo ku saabsan 10 diraacood marka diraac hadad maqashid waa 7 ama jilaal ma waqti un dheeraada waqti dheer oo markaas ha macna barnaamijka dhaqankiida si fiican marka wuxuu yiri Cabdi oo daalay gabay ma tirin 10 diraacood toqon iyo nin liigii markuu magac waan duubtay dacar qaraar oo cushay loo durbaan tumay markaa baan dabuubkiya ka jara daaqalkiya ur hayeeshee wax igu doogsan dibadda keenay haday darajo leedahay taxtiyo qiiro lagu doorto waa damal harweyn oo nafluhu dadab u seexdaan waa dir hilaaco abaar laga doogtaa waa deer la soo hanfiga laga dugsoodaa waa doox xirmaan oo dhaqsa laga darduurtay inta aad ku adirsataan curunta deelayda isku dugay dabaabaad ka dhiga ama saduulaan isku duma wixii kala durgoodana siyaasadda isku duma wixii kala durgoodana siyaasadda inta xeer daliil iyo furtaan dad isku keen isku doorta diinta iyo xaqan lagu dagaalay isku duubni iyo dawlad baa lagu dangaaray diraan hiya daarood halgamay dul hawiya sheegtay iyo duub isaaq maan hiya damal jareer weyn tabarro iyo qubays baan hoon laga dab qaaday iyo digil dagaalada horsho dirir u qaasha iyo miriflan beel wada diga shaashay wada duubaca dalka waa lagu beerayo la isku dooxay talow diirka Soomaaliyeed soo tan siman cadu diirka Soomaaliyeed soo dad siman ma aha cadu daaho soo toona jiriyaan dulmigu waare cadu daaho soo toona diinta kor u qaada cadu daaho soo toona jirida dariska qaymeey cadu daaho soo toona jirida dir qabiil dhaaf taxdaasna waa taas ninka Cabdishakuur waxa uga hadlaysay arrimaha qabiilka inta badan dadka falaqay arrimaha qabiilka aad farin ugu dureysay maasadaan dadku waxa timid anoo laandheero oo reebile macnaha wax shaqeeyana maahan si fiican marka waxa meel kama soo gasho diinta meel uga ma taal dhaqanka Soomaaliyeed meel uga ma taal marka waxa jirta anoo laandheero marka arintaas buu ka hadlay wuxuu leeyahay cabdo diirka Soomaaliyeed soo dabsi Soomaaliyeed dadku waxa la leeyahay anoo reebile oo anigu aakaan ku dhigay anigu deegaga hubaan leeyahay iyo anoo reebile gaariga qoray isku kaysaaran marka arintaas buu kaga hadlayay taxaska gaabkan ugu talagalay awaan aad u mahadsan tahay intaada barnaamij ka bixin ugu dambeyn bulshada ku xiran page-ka Uriisiyad Bare maxaad leedahay maadaama inta badan aan rabno inaan meeshan ku soo bandhigno barnaamijyada hidaha dhaqankana mid tahay abwaanita degmada hortiyadu u mahadsan tahay bulshada dhamaanteed waxaan leeyahay page-kana wad ogtahaano waa page-kii Siyad Bare DC loo kala kacsha sidoo kale waxa la waxay rabaan oo aniga cali garaad ahaan bulshada way soo dalba karaan waxay codsigoodana waa tixgelin doonaa insha Allah dhalinyarada reer Gurceel inay yihiin dad 70% ka dambeeya arrimaha jacaylka marka waxa laga yaabaa in dadka page-kan ku xiran ay dhahaan waxa u baahanaa arrimaha jacaylka in maartay laga soo sameeyo maasooyin kala duwan marka qaabili kartaa arrimahaas siyadu hor u sameysnayd iyo hadda loo sameey doono intaba waa jiraan qof kale wax ku soo codsato codsigeedan ku qaabili doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waxa waaye hadii jacayl la waayo oo noqon yahay mid hadda ka bacdi in la raajal rabo haduu yahay mid la haayo haduu yahay intaba waa ka turjubi doonaa insha Allah sidaa baan leeyahay marka soo dhawaada aad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan maadaama aad nala soo gaarteen halkaani ayayna ugu eg tahay maasadii 10 diraacood ku xirna oo page-ka Siyad Bare si uu ku soo gaaraan warar iyo barnaamijyo ku xiiso geliya fikirkaada ku aadan maasaan qaybta hoose comment-ka nagula wadaag tin inta gaar doono muuqaalka xigana waa dhamaantoon leh isma dhaafno